kolkaasuu ku yidhi haddaad gurigaa maanta sida aan ku yidhi haddaad yeeli weydo taan kugu dhigo waad yaaba dhexdaas barta ka qaniini guddoomiyihii maxkamadda sareena in xaaji calle wuu ii joogaa buu ku yidhi inantii buu ugu hanjabay laakiin waxaan sheegayaa annagu ilaa maanta inaanu ka cabanayno cadaalad darrada maxkamadda sare kiiskaasina muddo 2 sannadood iyo dheeraad inaan wax alla wax maxkamaddu go'aan ka gaadhay aan jirin annagoo wanaaga qorshaynay odayaal dhawaanna qardoofay caaqilkii qaraarka dan mooday odayaasha qoyska ay ka soo jeedo Khadra Ismaaciil Yunis oo haysata caruur agoona oo ka geeriyooday Allah u naxariistay Cabdiqaadir Cali Bandey ayaa ka jawaabay hadallo hore ay u soo jeediyeen odayaal ka soo jeeda beesha Ciise Muuse gaar ahaanna reer Wacays taasoo ku saabsan dacwad u dhaxaysa 2 nin oo walaal ah waa sidii hadalka u dhigeen odayaashan oo magaalada Gible shir jiraad ku qabtay ayaa yiri waxaan ka hadlayaa kiiskii u dhaxeeyay labada hablood ee mid agoonta tahay midna ninkeedii nool yahay ee inantaa Ciise Muuse reer Wacays iyo inantaa kale ee mataqaanay Jibril boqol reer dalal kiiskaas oo arrinka la xumeeyay ayaan ka hadlayaa maalin dhaweyd waanu ka hadalnay maalintii dhaweyd aanu ka hadalnay waxa naga daba hadlay odayaal reer Wacays ayaa naga daba hadlay odayaasha reer Wacays ninka Sadiiq waliba la yiraahdaa leeyihiin magac Sadiiq baa la yiraahdaa si wanaagsan umu hadal marka halkan maanta waxaan doonayaa ina yacna wixii iyagu halka ay ka hadleen anahan ka jawaabo ninkan inanta qaba ee caruurtan agoontaana dulmaya adeerka uu yahayna kiiskan waxa xumeeyay ninka la leeyahay Maxamed Cali ee inanta reer Wacays qaba iyo ninka la leeyahay Cabdulqaadir Cali ee inanta reer dalal qaba labadaan nin walaalahi iyaga walaalaha labadaan nin iyagoo walaalaha marka way istacweeyeen markii ay istacweeyeen ayaa haddana iyagu dib u heshiiyeen iskooda waxay u gudbiyeen maxkamadda iyo u gudbiyeen maxkamaddii oo markaa kiiskii arrinkii ku jiro ayaa markaasi iyagu hay heshiis keeneen waxay markaa ku heshiiyeen in gurigan imika dhakhtarka ah ee Hargeysa inuu gurigaasina dee uu leeyahay ninka Cabdulqaadir uu waligiiba hanti u ahaa guri Kanada ku yaala oo gurigan kaba weyn kana lacag badan inuu ninka maanta nool qaato iyay ku heshiiyeen arrinkoodii maxkamadda markaa ku jiray way soo gabagabeeyeen nootaayada ayaa la kala qortay nootaayadaas waxay ka soo baxday nootaayada Hargeysa oo ugu tayada fiican leh qolada Ciise Muuse almis la yiraahdo ayay nootaayadaas ka soo baxday waxay ku taariikhsan tahay 2022 Juulay bishii 7 iyay ku taariikhsan tahay waxay labadaan nin walaalihi ku heshiiyeen inuu ninka maanta nool ee Maxamed Cali guriga Kanada qaato ninka imika dee dhintay maanta inaga hooseeyay ee Cabdulqaadirna inuu gurigan Hargeysa ku yaala qaato iyagu markaa ku heshiiyeen arrinkaas oo qoraal oo macal odayaashii saxiixay waa kuwa halka ku yaala halka ayaa maxkamadda la geeyay kiiskii bay maxkamaddu ooday kiiskii markay maxkamaddu ooday ee halka nimankii ay ku kala ducaysteen ayuu dee ninkii inantan reer dalal qabay ee Cabdulqaadir ayuu dee dhintay halkuu labadii caruuroodba ma taqaanay uu gacan qaban lahaa saddex buu leeyahay walaalkii saddex buu ka dhintay lixda caruur halkuu waxbarashadoodii iyo barbaarintoodii iyo fayuusharkoodii leensiilka berri way noqonayaan halkuu ka shaqayn lahaa uu baynantii agoonta haysatay ku yidhi guriga Hargeysa ku yaala kiradiisa saddex inoogu qayb aniga isii qaybna caruurtayda si qaybna adigu qaado waxa tiri war gurigani miyuu naga dhaxeeyay soonigii 10 sanadood baa anigu uu kareysna kareysta qaadanay qoladan carabta inay ku jirtana tii ana ka kireeyo la heshiiyay tii dumaashu wixii kale ee idinka dhaxeeyay haduu jiro mooyaane gurigan muun waligeeba hanti yahay kolkaasuu ku yidhi haddaad guriga maanta sida aan ku yidhi haddaad yeeli weydo taan kugu dhigo waad yaaba dhexdaas barta ka qaniini guddoomiyihii maxkamadda sareena in xaaji calle wuu ii joogaa buu ku yidhi inantii buu ugu hanjabay waxa kale oo la hadlayaa nimankaanu tolkaneen walaalahan hay Ciise Muuse ee reer Wacays ayaan ka hadlayaa waxaadna tirahdeen maalinta halkan ka jawaabnay nimankan xogagaal ma ahayn nimankan waxba may garanayn ayuu yaad ku cilciliseen waxa kale oo tirahdeen haddii dawladii faqastu joogi lahayd meesha waliba Gible baa tirahdeen haddii dawladii faqastu joogi lahayd maanta nimanka waa la xidhi lahaa waxaana nimankii dawladii horana dadka ay dhibaatada u geysatay sida aad ka uga baqi jiray Jibril kor bay haayeen baa tirahdeen waa meel aan hado tii anagu waxaan u haysanay dawladii faqastu inay saaqo dhan baleenaysay idinka hadii heshiis dal lahayd tii anaga weyna leenaysay waanu iska celinay tii wax la nagu xidhaana anagu meesha ma oolin anagu cidna ma naan xadin cidna ma naan boobin
cidna maanaan dilin ciise muusena maanaan cayn reer wacaysna maanaan cayn annagu maxkamadda un baanu ka cabanay idinkuna halkaasaa wax idinla mareen waxa kaloo weliba kusoo celisay waa tirahdeen annaga inantayadii wayna aqbashay oo markaanu ku nidhi kun qaado inantana kun ha qaataayadii dee odayaasheedu way u qabsoontay tiiniise dee hablaha jibraalku dee kuwooda raggooda ma qabsoomaan waxaasoo kalena waa fadiixad annaga inantayadu kunka waxaan u qaadanayni dee gurigan iyadaa lahayd 10 sannadood buu hanti u ahaa iyadaa qaadanaysa kirada ninkeediina cid baanu wada leenahay kumuu odhan cidda macdana ma arag markii arrintii la gacan togleeyena waxa lagu yidhi gurigii waxa niman yahay 6 kun buu ku kireysan yahay inantaa reer wacaysna 6 kun ha qaadato dollar inantan reer dalna kun ha qaadato 4 kunna meelaha lagu ururiyaa liir inantayadii anigu waan ku raacsano xaq bay walaal waxa tiri dee gurigayga saan kun uga qaadani ma cid buu naga dhaxeeyay sharcigiisu waa kan wuu ii kareystaa waan haysta dee inantiina waxaan xaq u lahayn baa kun la siiyo dee maxay ku diidi waa lacag wadays ka socota la siiyay taasi waa taa midda kale waxaan leeyahay ninkaas sadiiq la yidhaa ama nimankaa reer wacays waxaan leeyahay war ilmaadii rayaal dad tolaynu nahay dadkii weliba arrin lagu tuumayay reeraha u tali jiray baynu ka soo jeednaa war waxaan idin leeyahay annaga kiiska waxaana soo geliyey inantaydu waa agoon inantaa agoontiisa annaga cid u hadasha ma haysato annaga inanteeda ninkii qabay hadduu nool yahay dee anagu khadkaba maanaan soo galneen laakiin idinka inantiina ninkii qabay wuu nool yahay waa 20 jir waa nin ilbaxa waa injineeriyan hargeysuu ka shaqaystaa berberuu ka shaqaystaa kanaduu tagaa uu ka soo noqdaa idinka kiiska haddaad wanaag ku soo gashaan mooyaane inantiinu dee uma baahna idinka reer wacays iyo cid kaleba oo garab gasho oo bari dee ninkeedii baa nool waa marka ugu horeysay horta arrinta dee wax badan baan anagu ka ognay sidii wax u socdeen iyo cadaalad darrada anagu maxkamadda aanu ka tirsanaynay mar labaadka kamaanan hadal anagu reero iyo cid aanu caynay iyo habla aanu caynay midnaba maanaan taaban waxaanu ka hadlaynay uun waxay ahayd cadaalad darro maxkamadda sare aanu kaga cabanaynay taana dee xaq baanu leenahay inaanu ka hadalno ilaa habla iyagu gaadheen oo reeray taabteen taa ka hadli maayo imankaanu maanta oo hablaha waxba ka jawaabi maayo laakiin waxaan ka jawaabayaa sifaha kiiskan ku soo bilaabmay ayaan wax yar dadka u iftiimin doonaa waxa weeyaan kiiskan laba nin oo walaalaaba dee wax isku qabtay dadkuna wax way isku qabtaan labadii nin ee walaalaha ahaa iyagoo muddo wax isku hayay wixii ay isku hayeen iyagu way ka heshiiyeen heshiiskiina halkan uu ku cad yahay oo heshiiska waa halkan ku cad sidoo cashuurba sheegayay ee maxkamadda horteeda ay yimaadeen 3 garsoore ayaa halkan ay maxkamadda horteeda labada nin ay hor keeneen oo maxkamadda sare horteeda kaga qirtay kaga heshiiskii ay keeneen ay ku akhriyeen 3 garsoore maxkamadda horteeda ay fadhiyeen iyo markhaatiyaashiba ay fadhiyeen waxaa ka mid ah garsooreyaashaasi cali shucayb axmed diiriye iyo cabdilaahi axmed 3 garsoore hortooda yay halka heshiiska labada nin ee walaalihii ay ku cadeeyeen dabeetana waxay ku cadeeyeen oo halkan ku cad inay kala qaateen guriga Kanada ku yaala waxoogaa lacagina ay jirto oo maxamed leeyahay cabdulqaadirna uu magaranayay uu bixiyo lacagta una ku bixiyo muddo 60 maalmood ajal baa timiday oo dee qofna lamu balamin nafta saacad baynu leenahay cabdulqaadir wuu dhintay Allah u naxariisto maxamed baa nool maanta isagoo maxamed nool ayuu maxamed baa nool maxamed waa ninka inantan nimankan ay u hadlayaan qaba inantan reer wacays dabeetana maxamed markaa uu gudoomay gurigii saasaanu ku qaatay gurigii Kanada laakiin guriga uu qaatay cabdulqaadir gurigan hay ku jirto shirkadan qoladan carabta ee dhakhaatiirta international hospital waxa weeyaan waa guri la yaqaano oo sharciyadiisii nidaamkiisii la yaqaano shirkadan ku jirtay maanta dhakhaatiirta carabtaana de khadra ka kireysay khadrina iyada uu yeedhay cabdulqaadir isagoo cabdulqaadir Nairobi jooga dabeetana uu yimiday kambanigii ku heshiiskii bay galeen gurigana intaasoo sanadood bu kireysnaa intaaba kiradiisa iyada lacagtiisa cidii la unbaa maamulay soo qaadanaysay markuu marxuumku dhintay dabadeed ayuu maxamed soo abaabulay inuu reerkii intii uu yimaado agoontii wuxuu leeyahay markaa waxaad sameysaan kiradii guriga ayaan ka doonayaa inaad noo qaybiso waxay ku tiri kirada guriga de ma xoolahan agoonta ayaa dad wax ku leedahay meelooba ilaa arinta waad lacagta qaybin maayo bay dabeeta maxamed wuxuu waan ku dacweynayaa
dacwadii buu bilaabay sidii dacwadii ilaa imika ku socota dabeeto kiiskan markaa maxkamaduhu way soo dhowr maxkamadood jaranjarooyin kala duwan buu soo maray maxkamadda racfaanka isagoo maraya ayuu gudoomiyaha maxkamadda sare isagu ma garanaysaa kiiskii la awdayo sidaa lagu soo xidhayo ayuu gudoomiyaha maxkamadda sare isagoo awood kaga hoosaaray uu ku hoosgeeyay maxkamadda sare ilaa maanta halkiiba taala cadaalad darradan markaa annagu aan ku cabanayna waxa weeye iyadoo wixii aan wax lagu heshiiyey aanu ahayn odayadaa hadlayay habeenkii maalintan dhoweyd waa kuwaa qiray lacagtii guriga kiradiisa ee maxkamaddu xanibtay in iyaga looga saaray iyaga afkooda ka qirtaan oo kamaana soo saarin dabeetana wixii la isku hayo in maxkamaddu cadaalad ka gaadhin oo ka garniqin ayaa awoodda lagu saaray iyaga sheegi doonee awood baa lagu saaray waxaan aaminsanayna awood maxkamadeed u tahay lacagtii saasa lagaga saaray dabeetana agoonta ta kale labaad ka jawaabaya waxa weey waxay yiraahdeen inantiinu may gar qaadan inantayadu wax weyn xirana way leedahay xidheedana way ogoshay maantana way ogoshay oo xidheedu waa annaga u xidhaa marka maadaama ay taana jawaabteedu waa ta kale labaad odayadu ay ka hadlayeen waa taa reerahana anigu taaban maayo laakiin waxaan sheegayaa anagu ilaa maanta inaanu ka cabanayno cadaalad darrada maxkamadda sare kiiskaasina muddo 2 sanadood iyo dheeraad inaan wax maxkamaddu go'aan ka gaadhay aan jirin iyadoon go'aan ka gaadhin in arrintii sidaa mar walba ay tahay oo arrin jaban ay tahay dabeetana saasan ku soo gabagabeynaya sharciga qalooc ku yimaado qalad dhacay inaan saxa weey odayaal dhawaalna qardoofay annagoo wanaaga qorshaynay odayaal dhawaalna qardoofay caaqilkii qaraarka dan mooday waxaan idhi qarjajacu wanaaga ma keeno qabiilnimaad u soo halganteene qisada markaan run u eegno sharciga qalooc ku yimaado qarankoo dhan buu dhutinaya qolonimaad u heeganahayde ina xaajibaad u qabaantay ninkan aad u hadlaysaan aad idinku dacweysaa wuu noolya waaba xaye idinka arrinka sababtan aad u soo gasheen maxay tahay haddaydan qabiil iyo qof jeclaysa aydaan u socon midda kale waxaan sheegayaa oo leeyahay arrimaha dee annaguba abtibaanu nahay haddaad inamada absuutiinka uga saarteen baanka lacagta annaguma ku dhici karnaa ma noo suuro geli kartaa inaanu baanka intoo arrin halkan uu naga qabsado un ayaraanu dhaqaaqnoonu lacagta maaragtay aqalkaa xandiban oo la soo baxno ta kale 9 sanadood bay iyadu u madax banaanaydo arruurtaasi iyagu ciday doonaan ka kireynayay ma fahamtay waxaan maalintuu dhintay uun aad u soo mirkacdeen u soo kacdeen waxa weeyaan dee kaalmo aad haysataan oo markii isaga aadan xaaji calina magacaabeedaad la timaadeen arrinkan waa Jacfar Awil Herari telefishinka sahan magaalada Gabiley